xerada qaxootiga ugu weyn dunida waxay hoy u tahay in ka badan 800 oo kun oo muslimiin Rohingya ah oo ka soo baxsaday dalka ay ku badan yihiin Budaha ee Myanmar. Dr. Ramez Momeni, Genevieve Jones iyo Sarah Wade waxa ay dunida ku soo caawiyeen qaxooti badan, balse hadda uma diyaar garaysna waxa kaga horeeya halkan. safarkooda waxa uu ka bilaabanayaa ilinka xerada oo ay ku caawinayaan qaxooti cusub. halkan waxaa lagu siiyaa alaabo kala duwan iyo sidaan filayo teendhooyin. laakiin shaqaalahan gargaarka waxay xerada gudaha u sii galayaan meel 2 saacadood loo soconayo si ay xarun caafimaad uga furaan. waxaa jira caruur badan oo hadda dhashay oo aan loo hayn wax la siiyo. xanuun aan caadi ahayn ayay ku hayaan. waxaan ayaa madaxooda ku yaala oo oogada jirkooda dildilaaciyay, marka waxaan u marinaynaa kareen. maanta joogsi ma lahayn hawsha, qandho iyo qarqaryo ayay ku jiraan. wax la awoodo ma ahan dhabtii. waxaan filaynay caaweyaal badan oo aan la shaqayno, kuwo badan oo ku sugan Suuriya oo hay'ado badan ay joogaan oo dhulka ay dadka ku caawinayaan. waxaan filaynay in halkan ay la mid noqoto, mana ahan. dadkan caawin la'aan ayaa haysataa. dadkan badankoodu way daalan yihiin, xanuun iyo gaajo ayaa haya, welina maysan gaarin halkii ay ka degi lahaayeen xerada. in halkan la joogo aad uma dhibadno, annagoo og inaan ka tegayno dad xaaladan sidaan u xun ku jira.